wasiirka wasaaradda horumarinta waxbarashada iyo tacliinta sare ee Somaliland iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta soo gaadhay degmada Garadagh ee galbeedka gobolka Sanaaga waxaana wasiirka iyo wafdigiisu ay kormeer ku sameeyeen dugsiyada hoose dhexe sare ee degmada Garadagh waxaana ku soo dhaweeyay maamulayaasha dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee degmada Garadagh iyo maayirka degmadaasi Garadagh Dr. Cabdullaahi Suleymaan Boobe iyo waliba bahda waxbarashada ee heer degmo waxaana halkaasi mas'uuliyiinta waxbarashada iyo maamulka degmada Garadagh ay wasiirka iyo wafdigiisa uga warbixiyeen xaaladaha kala duwan ee waxbarasho ee degmada Garadagh maanta halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa wasiirkii wasaaradda waxbarashada iyo tiimkiisa marka hore waxaan salaamayaa wasiirka iyo bahda waxbarashada ka soo qaybgalayaasha kale iyaguna waxa weeyaan guddoonka waxbarashada iyo waxa weeyaan maamulka degmada ugu horeeyo warbixinkaas iyo iskuulka Garadagh Secondary School dugsiga sare Garadagh waxa ku jira arday ilaa 200 oo arday ah ka gudbo mudane wasiir aad iyo aad maanu kaaga mahad celinaynaa kormeerka aad gobolka ku marayso hadeerna aad nala joogto degmadii ugu horeysay ama degmada laga soo galo gobolka ee Garadagh aad iyo aad baanu kaaga mahad celinaynaa kormeer hawleedkaagan aad gobolka ku marayso berigii horena su'aasha wasiirkuna weydiiyay ee ah bal sidee baad uga mid noqoteen tan topka Somaliland haddaan su'aasha siradu taago wasiir horta mid kale aan kugu bishaareynayay 15 sanadood u dambeeyay gobolka Sanaaga anaga u sareynay dugsiga sare degmada Garadagh u sareeyay hal cilad baa haysata ardayda dugsiga oo waxa weey cilada IT-ga halkan waxa naloo qalabeeyay fasal baa naloo qalabeeyay hay'adda keer ay qalabeysay maamuluhuna uu ka warbixiyay fasalka macalinkiisa iyo systemkiisina ayana hadda wasaaradda ka hor jirtay iyo maamulka iyo gudoomiyaha iyo waxa hawshiisa dheer la wadaa ardaydu ma dhameeyaan dugsiga sare iyagoo computerka kala furi karaya computeradu way yaalin inta kale laakiin aqoonta inta kale way ka dhameystiran tahay taana xoogeeda kulay marka ay gudoomiyaha iyo ay ku siiyaan maamuluhu ay warbixinta ay ku siiyaan oo waraaqaysan ay ku siiyaan in macallimiin takhasus u leh oo tababar fiican qabta computerka iyo IT-ga maadaama aan solar systemka wala keenay IT-ga wala keenay hadda fasalkaas waa dhameystiran yahay waxa weeyaan waxaanu kaba soo hadhaan wax waliba waxay ku xidhan yihiin maamulka marka hore meesha waxa ka jira maamul fiican oo maamulaha iskuulka iyo gudoomiyuhu aad iyo aad bay shaqadan uga wax weeyaan halkan ay ardaydu soo gaadhaan qaybta ugu weyn bay leeyihiin talabaad waxa weeyaan xilli aan iskuulada laga shaqeyn baan anagu shaqeynaa una socda safar shaqo iyo xogaal noqoshada sida u socdaan hawlaha waxbarasho ee gobolka Sanaag hadeer uu soo gaaray oo ay tahay degmadii koowaad ee aan anagu ku soo dhaweyno runtii aad baan ugu mahadnaqayaa wasiirka iyo inuu raadinayo xaqada iyo sida waxbarashada ay u socoto ka degma Garadagh ahaan wasiir marka koowaad aad baan kugu soo dhaweynaynaa mar labaadna waan kugu soo dhaweynaynaa iyo sida ay shaqadu u socoto iyo xilliga aad la taagan tahay iyo xilliga aad baahiyaha ee ay xilli runtii waan kugu soo dhaweynaynaa mar labaad bacda soo dhaweyn kulay iskuulkan wuxuu soo saaray asad badan labada iskuul iyagoo isku duuban waxay soo saareen asad badan waa dugsiga hoose dhexe oo bayskiya wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Somaliland ayaa isna dhankiisa halkaasi ka hadlay isla markaana ka warbixiyay ujeedka safarkiisa u baahan in baaritaan lagu sameeyo oo meeshay gashana laga daba galo mid waxa weeye iskuulo iyo malcaamado aan diiwaan gashanayn oo aanay dawladdu war u hayn baa ka maanta laga bilaabana fursadan aan ka faa'iideysan Somaliland oo dhan waxaan doonayaa inaan ahdo waalidiinta iskuul kasta waa inuu xafiiska ku dhajiyo gudihiisa ku dhajiyo meel la arkayo liisanka iskuulada gaarka iyo kuwa dawladdu leedahay iyo ka malcaamada mid walba inuu halka ku dhajiyo waalidiinta Somaliland waxaan leeyahay markaad iskuulka qoraysaan ciyaalkiina haddaanu liisanku halka ku dhajisanayn liisan shaqaynaya oo aan dhicin inaydaan ciyaalkiina waa sharci daro in iskuul aanay dawladdu diiwaan gelin iyo malcaamad quraan ay dawladdu diiwaan gelin oo aan liisan haysanin in arday lagu soo xareeyo Maxamed Gumburi Bulsho TV Garadagh